jacayl hadimadiisii adigay horseedo halbowlaha digoyso igamana waraysidee jacayl hadimadiisii adigay horseedo halbowlaha digoyso igamana waraysidee ها إيشو قدبي هلو فوزي الحمد لله في عنها هذا كوما إيمان كرو ما يشقى بدن أي تالو مشغول سنة هاي هذا كوما إيمان كرو ما جدنا وإيشو سعيا إيشك مهم هذا ما يتلافن كيف شق ما إيمان كرو سو كوما شيء جناديك تلافن مكوجو شيء كرو أرنتان مهم واي صدق دقاني أديك دانو قشري وين أرنتان wax fool xun inay dhacaana macquul ah waa inaan is aragnaa labadayna haaf anawar gudaheedan kugu imaano waxbaa ka walwalin hadda waa sheekaysanaynaa markaan is aragno haye fawsi maxaa jira zuhra maal wixii waddankan ku yaala kala dabar please sida ugu dhaqso maxaa dhacay dawladda miyaa rabtaan tinteeda in la wareegto dawladda maxaa ka sheegaysaa dawladda waa roon tahay ninka xaaji faraj ahaa bisha soo socota maxkamada loo balamay in la saaro in la soo dayaa laga yaabaa fadhiga koowaad miyaa la sii daynayaa wax walba ka fila maxkamadda maxaa dhacaya markaas haddaba haddii la soo daayo odaga waa dhaarsan yahay hadda dhow shir waxaan wada lahayn ninkii mutasarhay wuxuu ii sheegay hadduu soo baxo wuxuu reebaa mala xoolihiisa waa rabaa sow ku helaba waa ku ceshanaa howlihiisa marka waxaan ku dhihi lahay adoon kala daadsan iyo usan ku soo gaadin iska diyaar iska noqo maxaan sameeyaa hadda waxaan ka helanayo shaqadayda hadda shaqadaada sideedaad ku dhaafi kartaa laakiin waxaa loo baahan dad wakiilka ah oo shaqada sii wada inaad samayso villadana gad villadiniyo maxaa sameeya magacayga ku qoran waraaqii dhan asaa haystaa ha ka walwalin taas orjinaalada koobigooda cad anaa kuu keenaayo midda shaarma sheekh ku taalma maxaa taas magacaaga ma ku qorna miya maxaa dhacay ma ilowday adigaaba iisoo sameeya waraaqahe okay waa garta laakiin hadda adiga maxaa ra'yihoo haysaa waxaan ku weydiinaa duqan lacalla maajid ma iga furi karayaa aadaan welwelsanahay waxaan ka baqayaa guurkeen inuu burburo adiga waxba arintaas ha ka walwalin burugnaas ka saarin ani adiga cidna kala gey karta ma laha waxaa tahay xaaskayga xalaasha ah ilaan ka dhintana xaaskayga ahaanaysaa maya maajid weligaa sidaasaa dhihin teeda kale anaga fuus hadalkiisa ma diidayno anaga waddankan xataa waa ugu guuri karnaa dhammaantiis beled kale ayaan degaynaa asiga daraaddiisa waa fikir aad u fiican laakiin waa og tahay anigu hooyadaya ayaan ka baqayaa inay iga diido midda kale uurna waa leeyahay cunug yarna waa haystaa dhegayso hooyada adiga aaday kuu jeceshaa godada gasho kaa dabagelaysaa muu malayna inay diidayso hooyada maya meelaan u socdo ma leh aniga haddii baxaay xajle u tagaa maahane ma baxaay waxay ku nid degan tahay niyaddeeda adiina waan inaa israacaysiin anna eedadahan la joogaa marka ha iga walwalin hooyo macaan haya hooyo hooyo kaliya maa liiga tagaa ciyaal maama waaxid weligaaba ciyaala ahayd yaa ku dhaa keligaa jooge naagtaada la joogaysaay batiica batactac may ahayd wiilkaygiio famil weynaa haysataa aniga ma ogdiin waxay ugu hayaan dhibaato badan ayaan ku jiraa maba la socotiin xalkayga aniga waxaan rabaa inaan meeshan joogo oo keliya walaashay zuura waxaan rabaa aniga iyo xaaskayga inaan jardiinooyinkan kuna nadiifino oo aan villadan iska joogno meel kale aan aadayo ma jirto maya villadan waa la kareynaya berri toolaa joornaalka rabaa inaan kusoo qoro shirkadana ma la kareynaya haddana maya shirkadda waxa waaye fawzi rabaa inaan mas-uul uga dhigo fawzi ma wax ku aaminaysaa aniga oo walaalkaa ah xataa mi aaminaysid miya maxay tahay caqliga hee gabadhan go-aan ee gaarta waaye maxay tahay go-aankan aniga zuura lacagteeda waa lacagteeda maya lacagteeda waxaa xaq u leh ilmaheeda maajid ma rabi inaan inta ka shaqeeyo wuxuu rabaa inaan wax dhan xaraashoon dibadaha ka shaqeeyo anigana maxaan qabanaa baagamuudda baan noqonaa haddana mandhow adaa wax bara weyse boosaneerkaagii aa shaqada ka qabsan isku noqo boosaneerkaas sheegay maxay tahay mar raba meeshaas uraysa ani inaan ka shaqeeyo haddana mar labaad meesha ku noqo miya ha walwalin walaalkayow lacagtaada bil walba waxaad ka qaadan doontaa fawzi warkaaga dhan fawzi miya maxay tahay waxaanoo kale maarka weligay war ha qaylinin haddii walaasha ay wax kuu soo dabarayso ay ku siinayso maxaa diidee lacagtu maaha mida fawzi jeebkiisa uu kaa siinay waa midaan anigu bixinayo imika ma shaqadii boosaneerkaad ku noqosa mise wax kalaad heshay adiga ma ogid shaqadaas waa shaqada keliya oo aan fahmi karo
oo aan si fiican ugu soo shaqeeyay urkeedana aan aqaano hadda ka hor 2 jeer ayaa sanka liiga qalay waxaan la yaabanahay ma walaalba walaalkeed bay mas'uuliyadiisa qaadi kar laada ilaalin kar laada maxay u diidaysaa inaynu nakaxayso innagana waan la yaabanay arrintan anigu xaasnimadeedan ka yaabay wallahi waa arrin cajiiba war anigii adiga yaan rabo inteena la geenaa beledkeena la geenaa ii sheeg oo miyaanay mashaariic ka wadin meelaha ay guriga war mashaariic ay wadda ma jirto waxay rabtaa ninkeeda inay ku wada noolaadaan halkaas anu waxaan moodayay inay lacagteeda ku shaqaysanaysee war adiga qalad ayaad fahamtay walaashay wax kale iska dhaafe waxaan weydiistay inay 1,000 dirham isiiso bil walba tiina si dhibaato leh ayaan uga helay dood badan kadib 3,500 ayaynu markii hore taagnayn imikana ma kun bay maraysaa maxay inoo qabanaysaa kunkaas war haddii intaas aan ka helay alxamdulilaahi waaye oo dhibaatadaasoo dhan maxay reerkan inoogu samaynayaan inoo xaasidayaan hooyadaa ayay ka timid dhibaatadoo dhan oo sixir iyo balaayo hooyaday la daba socdo mogtaa waxa aniga aan ka fikirayo oo maskaxdeeda ku raagay inaan maskaxdeeda deji ayaan rabaa maskaxda ayaa i wareertay adigana hay qasin nabaad guur baa adiga dhan kugu dhacay timo la'aan iyo waxaad isku darsatay lacag la'aan aniga mushkilad baa mar walba ay haysataa hogey suugadii ay igu gubatay ma hadli karnaa si wanaagsan waxaan kuu sidaa hambalyo iyo bogaadin aad u ballaran maadaama heerkan aad gaartay waa mahadsanta cid filanaysay ma jirto adiga sida degdega ah horumarkan aad ku gaartay oo alxamdulilah ilaaha nasiibkaan siiyey iyo horumarkaba ilaah baa ku siiyey misana haddana lacagtu waan garanaynaa halkay ka timid aniga cid aan jeebkeeda aan gacanta gashado ma jirto wax walba waxaan ku keenay shakhsiyadayda way jirtaa inaan lacaga deymaha bangiga ka qaatay laakiin waa soo guday markii dambe lacagahaas faraha badan lagu deemiyaa ka dambeeyey abkow libaax mahi qofkii ugu horreysay ee lacaga deymaha bangiga ka qaata dad badan ayaa jira oo lacagaha ka qaatay bangiyada kadibna iskala dhoofay oo waddanka dhan ka baxay annagaa ku siinay fursadahaas iyo jaaniskaas faraha badan ee ku taajirtay laakiin hadda annaga xisaabtankeena la gaaray kadibna waad xasuusataa baan moodayaa hadda kor inaan ka hadalnay arrimaha shirkadaha xaji farag haa ka waran haddaan maya dhaho noloshaada hore baad ku laabanaysaa annagana cadow baan kugu noqonaynaa annaga baawar waxaan leynaa wax walbaan ku burburi karno adigana taas waad ka dheragsataa baan malaynayaa kabaalow hadallada aad ku hadlaysid ma waxay ka mid yihiin oo ay ku qoran yihiin qodobada hanjabaadda maxay tahay hanjabaadaad ka sheegaysad war meesha waa wada shaqayn teeda kale waad la socotaa annaga wixii shilin oo kaa bax wuu kuu soo laabanayaa waa hagaag hadda arrimahaas waxba dhibaato hadda kama qabo waan ka wada hadli doonaa marka waxa weeyaan hadda waan baxayaa waxaan u socdaa lubnaan weega dambe ayaan kasoo noqon doonaa markii aan soo noqdo ayaan teleefonka usoo diri doonaa oo waa wada hadli doonaa adiga fikradaadii hore madax adeeg wax badan ayaa iska bedelay maya aniga markii hore lacagaha keligay ma lahayn oo go-aanka ma gaari karin hadda waxaan ku weydiinaa ninkii mudasar ahaa arrimihiis intay marayaan mudasir waa nin aad u fiican oo shirkadda hantideed aad u ilaalinaya nabadey xaggee socotaa qaxwo ma cabinaya qaxwo waa cabi doonaa waliba qaxwooyina wada cabaynaa hadda ma waa markii heshiis aan gaar nabadey waa hagaag nawaal degdeg ii gooba waa maxay ninkan strange-ka meesha taaganina waxaa hadda looma jooge waxaan ku yiri waxaad samaysaa diyaarada ii bukan garee degdeg ah duurka intaan la gaarin maxaa jirana waa haddaan u baahanahay waa safar degdeg ah soo galay haddaan waayana haddaad weysa xataa diyaarada qaasa ii bukan garee keligay aan ku waayahay bal waaye nawaal waxaan kuu sheegaya safarkayga cid bini aadan inay ogaato ma rabo waxaan maqnaanayaa 3 beri 4 beri keligay baan soo noqon doona cidna ha u sheegin war heedhayaad garaacaysaana wax ma garaacoya cuudi teleefon leen diroya adiga maxaa kugu dhacay midda kale mar walba su-aal baaritaan leh maxaa ii weydiisa adiga maba ku filaynine maba doonin inaan imaado ma ku tala jirinanba oo maxaa wacay dee meel u socoto sheekadeena ma jiro maxaa jira maxaa dhacay bal haddii imika dad inoo yimaadaan oo reerkayagu i arkaan oo asxaabtay arkaan maxaan ku idhaahdaa oo halkan ay soo galaan ninkaana u shaqeeyaha leedaha very easy waay ma shaqaa meeshani meel laga shaqeeya may kula eg tahay horta fariido anigu maanta go-aan baaban gaadhay inaanan maanta kadib is arkin waa ku tuugaa saas ay dhinaba maxaa jira maxaan kaa sameeyey aniga khaladkan kaa gal ii sheeg maanta sa il hadlaysid maxaa waaye maxaa kugu dhacay war bal isiidaa miyaad ilowday waxaan isku ogeyn maxaan ilooba haddana yaa rasuulullahi xabiibullah maxaan sameeyey oo maba xasuusatid inaad tiri aabbahay baad u imanaysaa ma dhahay saas haa wallahi runtaa waa dhahay aabbaha waa jeclaa inaan saragna laakiin horta aan isbaran ani adiga
barashada igu hadha maxay tahay miyaanad baranin adiga waa ku barta laakiin aniga fursadaan rabaa inaan ku siiyaad adigana igu baratid anigu waan ku bartay aadna waan kuu bartay intaasaana igu filan may gabtaa ka fiirsa hadda aniga dabeecada qallibsanaan leeyahay si sahlan iguma baran kartid walaalay fursad aan ku sii si fiican aad igu xafdiso taas aan kugula talin lahaa aniga war dhegayso waxaan ku idhi aniga hadalkan wareejinaysa iyo riwaayadan jooji miyaanad ogeyn anigu cilmi nafsiga bartay oo jaamacadda ka soo baxan ku akhriyi karayo adiguna buug furan baad ii tahay saan doono ayaan ku akhriyi karaa chapterkan doonana waan ka akhriyi karaa ogow haa maama awe hooyo fariid waay hooyo ii warar fiican mabruuk idhehe mabruuka maxaa dhacay ma la socod khamiista arrinta soo maaha khamiista maxaa jira maxaa dhacay murhaan adoogeedaan la kulmi rabaa khamiista waa la isgelaa khamiista hooyo muhraan waa tuma maba xasuuste hal bilaa teleefon kula hadlaysa see u xasuusan murhaan no gabadha codka adkayd teleefonka waa la garaacatii dhehaysa waa la yaabana xataa taasaan la kulmaya adoogeed ii duceey sidaad ula kulmaysaa miyaanay hayn gabadha asalkeeda iyo meesha kasoo jeeda aynu ogaano waa kusidii waa lagu yaqaanaa adi taasa ka welwelin gabadha asalkeeda firkeeda kulli dad nool waay dad nool wax nool dhala maqlino reerka xataa waa la kulmay dadka dhan wax dhan anaa soo dhameeyo hooyo waa dhan wari adiga oo waxaasoo dhan maaniga gadaasheeda ka samaysay maxay dadka imika odhanayaan dadkay sheegay hooyo dee ehel miyaanad lahayn oo qof ehelo dad lo miyaanad ahayn waa ku sidee dad iyo ehel kulaa habartay dad iyo ehel ma asxaan iyo falay aniga adig hooyo fiican ay dhashay dadku waa ogyihiin waa fahmi karaan waxaan damacay oo ma soo casuntay ninkii maajida saaxiibka iyo xaaskiisa ها صاحب وأوجاي ما صرت جليسو محن سمع صاحب نصيبك سيداس النقدي مايا إن والوقت بيها لكن دم لهن ماي وحبت دي بهودين محيلا دادك دي بدك تمركل ما بروسي سولي كذا أنا مركان أديك واحد لينا dhib ma laha annaga ku bartiqaadayna meeshaan jirna markaas waddankaas annaga waxaan safraynaa beri dambe saaxiibkii adiga qofka quruxda ma leha khatarisana ma ha waa fiican tahay u sheeg laakiin sawirada noo soo diro sawir waxay ku leedahay sawirkeedii email ahaan noogu soo diro aragnay si okay aan ku dhahno qofta okay meesha saaxiib isma dhaafna alxasil bye كورن صان وعبي حاجة صرفيانا إيه ما شيءين أو ودك حتى كوبي شيءين wax ay ii sheegeen male balaayo waxaan ka shaki qabaa safarkan beenay wax ku duugan yihiin waa wax dhici karta inay bangiyadii waxaas oo dhan ay qaateen ay doonayeen inay baxsadaan ba wax dhici karta abaaye iska fiiraya waa kana filadii waa tanaa soo kulta قروح والله بلا ما شاء الله قروح ما دافته دنكاسا كدرن فيربا او جدا ما شاء الله عادي ما aniga hal mid ayaan soo jeedinayaa maxaa soo jeedinaysaa halkan ka furtid xafiiska soo dejinta iyo dhoofinta wax dhoofin iyo wax soo dejin maxaan marka dhoofinayaa maxaan si wadanka soo gelinayaa adiga marka hore suuqa tagaysaa waxaa soo ogaanay waxyaabo loo baahan in la dhoofiyo haddana waxyaa soo ogaanaysaa waxyaabaha haddana loo baahan in la keeno kadib waa intaasoo keliya waa basiid sida ganacsiga suuriya u horumarsan yahay kale suuriya iyo lubnaan waa beled ganacsi aabe alla u naxariista wuxuu waa ganacsada weyn laakiin aniga macasalaam ma jeclaysan ganacsi adiga ganacsiga ma jecleed xilligan haddaa ganacsiga jeclaan lahayd garabkayga taagnaan ya lahayd salaam haddaan ganacsada ahaan lahaa maba is arki lahayn baani adiga saan isku arki weyne alaabaan kaa gadan lahay sidaasoo isku baran lahayn waxay ila tahay hadalka maajid inuu sax yahay alxaasil halkan waxaan ku leeyahay saaxiibo badan oo ganacsata ah ayagaan ku geynaa la kulan kadibna magaalada sida halkeeda ka horeyso aragaane war heedhe soo doonista dib baad u dhigaysa marka hore hadda maxaa soo dedejisay soo doonista ha dhihin adigana faraati geliska dhaadi soo doonista waaba dhamaatee oo maxay kale yihiin maxaa dhacay aabbaha waaba is aragnay qaraan isla cunnay maxaa taas maxay ahayd maxaa la dhahaa taasi isbarasho iyo faataxo iyo isu dacan weeye faataxa waxaa maranaa marka arrin la dhammeeyo haddabay dhegayso maxaad markaa dib u dhigaysay faraati geliska no goormaa doonaysa marka inay dhacdo marka qaaliga oo labadan isku keena nikaaxayo anigu ma fahmin aad bay ugu adagta arrintan inaan fahmo adigaba ma fahmaysid waxa ka kan adaa ka dhigoyo weligaa adig qof saaxiibta arooskeeda iyo nidaamka iyo wax dhan ma arkin miya jaahil maxaa isaga dhigoysaa adaygan ma iska dhaaftid walaalay saan u aqaanan kuu sheegaya anigu
waxaa jira meher soo doonid iyo gees fadhiisi ninkaas soo fadhiisanaya gabadhuu soo doonaya waa loo meherinayaa fargal buu gelinaya hadhow markuu aroosku dhacna fargalkiisna wuu gashanaya loola ka bedelaya bidixdaa la kala gashanaya yaa rasuulullah maba fahmin inta geli inta ka bixi shakar tusbaxa igu goyso walaalay waxa sheegaysa ma fahmin riwaayad bad haysaa aroos ma jeedid waqtigan iska luminayna aban malaynaya san arko se u hadlaysaa waxaan rafaad soo maray kadib ma ay leedahay aroos ma jeedid oo maxaad soo martad qabatay faataxo iyo isbarasho iyo reerkooda aragsid baa dhacday ma wax kala dhacay anigu waxaan doonayaa aroos rasmiyana la dhigo aroos rasmi ah waaba dhacay be maxaa kaloo dhiman hadda waan baxaya anigu imika sukorta maba qadiin be qadan bay kaaga dhigantay okay qada kalimaa casho iyo berime iyo sugunta waxaa rabtid war dhegayso aabbiyo hooy waxay dhahdeen haddii aanu meher ku dhacayn khamiista arooskuna dhacayn wax ma soconaya aabbaha soo wax wadaa khamiis kaliya maxay tahay war aniga haddaan arbaca raba ka waran arbaca haddaanba ku adkaysto maxaa sameyn arbacada haddaad rabto soo kawaaya arbacada ma rabtid wallahi baa shaqaan leeyahay arbacada wallahi billah maxaa ku diidan tahay inaan sheekaysano oo ani adiga si fiican isu baranno maxaa la dhahaa hoos isugu dhigno dhegayso adigu ciyaar iyo riwaayad baad wadaa haddaba waxaad doonaysid adigu soo qoro iyo daraasadaada ii keen markaad diyaar tahay maba garanay waxay kaa baray iminkana waan baxayaa madaxa sukorta casriye iyo wax ma cunayno sawa adiga madaxay xanuunaya ilaa maalintan ku bartay madaxu ma degin okay aabbaha sawrab haddaan u yeelno oo qamiis arrinta ka dhigna ma qosli ii sheeg horta maxaad madax xanuunka iigu rida mar kasta aniga ilaa hadda waxaan ka fikiraya maxaan ku qadaynaa labadayna baastal forn ku dalbaa الله سورة يورن صاحب اوكي والله ها ما يدد لح بقف باكو سوقية ساعة هايمكا اسكا في عنا ما عنده اسكا يرا عجسنا حوغا يرحنا يرا جرا انا waxaan moodayay inaad maanta dhalaysid ba maya dhaqtarku wuxuu yiri laba cishiye ku hartay wax saasa ma aan marka hadda waa okay xaaladaydu waan iska fariisanaya dib malaan gurtagtid oo iska daysid shaqada maya ay shaqeynay haddaan guriga iska fadhiyo inaga maalinta ku dhamaynay inta hadda hor iska tag maya macna ma lahane bal hadda dadka qaybta ugu horreysay soo day qofka ugu horreeyay soo gali waayahay ماجد هاي نوال يقورن بالحالة كورن زور حالك كذا في عنتها هورورين أدو في عنتها حالته لا ما قصعك جرت هذا صدق دقيقة نوال أقولي ويلا إذن دشة قلبي جاي هاي الحمد لله ودي له وكل كلام صارت بيبي جا مقرف بدي هاي ها أذوق ويجي هروح له واي لقيت أذوق ويجي رنا أنت أبيه بويجي هاي ma iga habtaa nawaaley ninkayga camal baa u qurux badan yahay shaxshax la hogaan maragta odaygaga san markiiba degdeg kuugu keenay diyaaradiisa oo niman ban sii taagnaa meeshan markiiba soo oo igala soo daahdaba xilligan gacalisam ogsoon tahay qofka kaliya ka fikiro aad u jecelnaad adiga tahay teeda kale adiga nawal haddaan la ii sheegi lahayn inaad dhalaysid wax xanaaqi lahaa maya anaa ban jeclayn kaa xanaajiyo fasax ma ii soo qaadato qurux hadda si waa soo qaatay laakiin fasax waxaan soo qaatay abuunaas nuujin la yiraahdo waxay u maleeyeen in aniga dhalay كابتن ماجد هاي نوال يقورن بالحالة كورن زور حالك كذا في عنتها هورورين أدو في عنتها حالته لا ما قصعك جرت هذا
soddon daqiiqo nawaal aa guri wiila idin dhashay qalbigayga haye alxamdulilah waa haddii ilaahi u kala soo keenay aragta baybiga ma qurux badan yahay haa aduu kuu egyahay quruxlo waay naga daadoo ku egyahay run ahaantii aabihii buu eegyahay ma iga hobtaana waa leey ninkayga camal ma u qurux badan yahay shaxshax la hogaan maragta odaygaaga san markiiba degdeg kuugu keenay diyaaradiisoo niman baan sii taagnaa meeshan markiiba soo waabuu igala soo daahdaba xilligan gacalisa ma ogsoon tahay qofka keliyan ka fikiro aad u jecel inaad adiga tahay haa baby teeda kale adiga nawaal haddaan lai sheegi lahayn inaad dhalaysid uu xanaaqi lahaa maya anaaban jeclayn inaan kaa xanaajiyo fasax ma iisoo qaadato quruxba hadda si haa waa soo qaatay laakiin fasax waxaan soo qaatay abuunaas nuujin la yidhaahdo waxay u maleeyeen in aniga dhalay o maxaa isku soo dhibtay akhi ii fariiso aniga waxaan jeclaan lahaa labadoo maalmood inaad iska nasatid mushkilo ma lahan masar qofkii jooga 2 maalin hadduu dhalanya xataa shaqo gelaya laakiin kuwaan beeraley waa ku daysan adiga waxaad tahay qof maskiina waxaa loo baahan inaad nasatid maya aniga sidaasaanba kusoo korba hawl adag iyo shaqo ayaanba kusoo koray noloshayda wallaahi maanta neeca udgoon baa jirta aniga sheekada ha ii bedelin waxaan u baahanahay shaqada inaad joojisid anigaa la hadlay fawzi waxaan idhi xaaska waa culusta waa in caawisaa waa wixiise laakiin shaqada moogtahay laakiin adiga waxaan kala yaabay xafiiska dhexdiisaaba ku dhex dhali rabta maxaa ka waday xabiibi wiilkayga waxaa laga joogaa maalintuu dhashay 7 beri maxaa ma dabaaldegaysa miya arrintaas ma faraxsan maya saas ma ahan waxa waaye farxadda adaa iga qaaday because wiil iyo hooyadiis ayaaba safar ka aadaysaaba maba ka naxaysid maxaa waaye aniga duulimaad yaraan samaynaya ilaa jidda ah maqribkiina waa kula joogaa insha allah waayahay ilaahay samaha kugu geeyo maxaad iga codsanaysaa iisoo dhaqso insha allah waan ku xiisi doonaa anna waa ku xiisi doonaa ilaahay ha ii kaadisto waxaa qalbiga ii degayba markii ay zuura ay wiil dhashay oo maajig ay u dhashay xaajigana waa inuu ogaada ma ogtaa taas anigu waxaaban la yaabanay markii uu odayga jeelka ugu tagnay ma garanaysaa waad arkaysa uga hadlayay waxaad moodaa inay sixirtay jinni ku ritay cuud bila waa ka yaabay annaga maxaan ugu duwanaa suuro annaga hal maray ayadoo dhashay laakiin annaga meeqa jeer aan u dhalnay wax badanaa u dhalnay ma ogtaa taas iyadu daa wiil bay dhashay waxay nagaga duwan tahay mayana inala siman way naga tagtay ilaahay khayr ha ka dhigo siduu ilaahay ka dhigano eegi doonaa wiil iyo gabar maxay different ku yihiin taas waa isku mid ma ogta xalay marta maxaa kula yaabaa wiil iyo gabadh faqriga u dhaxeeya ma garanaysid miya waa ka inagu gabdho baynu dhalnoo laynama eegaye waa ilaahay amarkiis wax walba ilaahay amarkiis allah wallaahi bilaa waa cajiib haddaynu maanta inagu wiilal dhali lahayn walayna koolkoolin lahayn naagtana mu baran lahayn qalbigeedana waynu ka masixi lahayn maxay tahay waxaa ka hadlaysa koolkooliska ilaa maanta waxaan kugu dhuraya maad fahmin miya wallaahi haddaad i fahmi weydid dheegta bahalka igu jira intaad iska saaraad keligaa sheekaysan doontaana cidna ku maqlaynin may isqaboojo adiga sidaas ma ahan howshe ha bixinin wallaahi waa bashbash hooyo adiga see ii tahay alxamdulilah aniga waa kuu fiicanahay ha wlhaya weli ma xasuustaana hadda 7 beriyo jiraa wiilka alxamdulilah iska fiican yahay waxaan rabaa xaflad yaroo 7 baxa inaan dhigto ha adiga maajidan hadda la hadlayaa kadibna annaga ku soo wacayna si aad munaasabadan iyo xafladan aad maanta noogala qayb qaadato haddii aad noo imaaweysana macno ma lahan universal t v ayaa toos ugala socon doontaa hawada lagugu xiri doonaa hayo hooy macanto مع سلامة إلهي أكو دور هوي معانته آوي ألعبتك ده كنت جرتونا نيسا قبل صاحبي سورة أنا سورة ماجد maxaa ku dhacay maajid yarta wala dhacday
hallo waa kuma adiga ya ya walaalkii maaji caliima maxaa kugu dhacay dab maxaa kaa siiya deka xasbuna allah maajid maxaa dhacay hooyo maajid diyaaraddaa la dhacda hooya goormay dhacday wixii saarnaayo dhanna waa ku dhinteena la dhahoya waa kan aniga waa inaan baxa berri zuura ii baahan waa inaan adigu garabsa dee suginta imanayso soo noqonayso ilaa ehelkeedii baa joogay ehelkeedii ma tihiide waa ku sidee waa ku qasbanaya inaan aado hooya waa saaxiibkayga koowaad maajid zuura waa inaan garab istaagaa maanta haye ma faraxsantihiin adiga hooyadaa balaadii aa maleegayseen waxa dhacay moogtahay ninkii sidii diyaaradda camal saas kaga dulduulayay waxaa samayseen dhulka ayaad geliseen haa wax walba oo dhacaba reerkayga aabbahay hooyada baa ka dambeeyay musiibooyinka idinka idin hela saw maaha aniga sheekada ay riwaayadda hayla imanin waa shuquladaadii oo hadda maxaan samaynaa anaa kuu sheegay waxaan samaynayno waynu tegaynaa waa inaynu dhoofnaa inaynu meesha u taagnaano garabkeeda walaasha istaagnaa war adiga atoornimadaa naga dhaaf fiiri waxaan kaa rabaa aabbaha ma noo weydii kartaa xoogaa lacaga oo aan adiga aan ku dhoofno si aan u baxno war miyaad waalan tahay ma musiibadan dhacdadan doonaysa inaan diyaarad raacoon adiga anigu diyaarad wada la raacno ma soconaysa abadan wallaahi geerin maa taqaana kuma qurux badna bal waatan gabadhan masaakiinta ninkeeda waqti badan islama qaadan waa kan toddobada xafladda cunugeeda ayadoo isu diyaarinaysa kaway kurti baa timid maxaa la sameeyaa mudana fawzi macquul ma tahay aniga iyo xaaskayga inaad tikid raqiis xataa noo goyso si aan walaashii u soo arko ka waran tikid raqiis rabtaa miya maxaa isu shidaynaade anaa tacsida kaa geynaya don't worry maya aniga waxaan rabaa inaan walaashii soo arko oo aan dhibaatada haysato aan la qaybsado meydkiioo yaallo ma raba inaan ka maqnaado walaashay waxaan rabaa inaan garab siiyo oo meydka la duugo yaa ku dhahay meydaa yaallo horta diyaaradda ay dhacda meyd lama arkaayo ma fahamta meyd ma yaalla meesha ha welwelin maxaa dhacay meyd ma yaalla ah meydka lama arkin waxaan ku weydiiyey diyaaradda intay ku dhacday badda cas ee ku dhacda hadday maka ama madiine ku dhici lahayd saacaddan shahiid inuu yahay aa loo qori lahay badda cas lee mar walba la sheegaa diyaaradaa ku dhacday iyo markabaa ku dhacay iyo waxyaaba aan loo joogin badda cas adduunka dhan ay la qarabtaa haye saaxiib adiga meelaan kugu arkay intaan kugu arkay ya aniga weligeyba meel kuguma arkin adiga meelan kugu arka saa ii leedahan ii sheeg anaa ku dhahoy meel un waa kugu arka meelay tahana xasuusan maayo aniga laakiin wejigaaga guma yaala weligeyna meel kuguma arkin saaxiib laakiin aniga caana ah abukaata USB Fawziya la yiraahdaa PhD FLD wax dhan ana soo dhameeyay nin caana ah haddaan soo xasuustay zuura abukaateeda soomatiid adiga haddaan xasuustay ha zuur ma waxuu qabtaa kaale inay laba daan leedahay kala u sheegaysaa war zuura naag caano ganacsato weyn waay anaan ah looyarkeeda ma fahamtay adigu qof ma noo ahaydna fariid maqribi ayaa la yiraahdaa aniga injineer diyaaradaha ayaan ahay marka hadda maajid saaxiibkiis qaaligaan waa tacsidii aan u imid ma fahamtay allah ya raxmad yaaq marka tacsi aan maqlo ku yeelan siiba yaaq ma dhinta waa ilaah saaxiib hal asxaanan rabay inaan ku weydiisto diyaar waaye adiga soo meesha ma socotid ha adreskeeda ma taqaan meesha haddana adreska aqoonsan u socda ii sheeg bal adiga say kaa naqday warka soo gaabay aniga waxaan rabaa inaan kugu lug darsto israacno aniga way ha subaxay allah maajid waa dhintay ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كون ما وحن دعن سدح مالك هور دعن تعسيد سن حالية إهات أديك أخبار حن لإيسو شكتا مروربو وأنا يابناي وحي نعلم كل شيء يعني وحاني مسؤول في نده إلا جيس متسر إنكستو ماجد أنيقا أو دباتي يجيستي حدنا آدا يعني وقحو ماهي سيدي أوه ما بيس إيجار كواء سكري سيرتا إيجارك هدي عن سيدي أو سكري ودقم لهاي ساعدها وأوي لهاي الحاصل هذا زوروي مدح بنانتي حاجي سيرتا أدويلي خفتاس نيد ما كويسة إسكراف نتاس ناك بكون نخطو خمية ويا خفتاس رن مربتا أذيك قمية اسكتا حوغا حسين نصطو أوكي دكتوري حالتي ka waran gabadha bal ka waran xaaladeeda hadda sidee kula tahay xaaladeeda xogaa way shoogsantahay gabadha moogtaa ninkeeda naagtan aad inay u jeceshahay warjacayl looma joogin isu dhaadayna xasayta hadda gabadha
hadda way fiican tahay gabadhan nabaal waan la hadlay waan u sheegay arrimaha dhan waxaan dhahay daaweynka waqtigeeda ha la siiyo siiba fitamiinka ha loogu badiyo ilaan gabadha fitamiinka ka maqan ها igu hale aniga wax walba sameynaya dawadeedana siinaya haduu la yiraahdo dadaal waan kugu ogaasada ilaa goormaysaan ahaanay gabadha horta mid aadin sheego oo muhiim ah gabadhan isbitaalka inay sii joogto waa loo baahan yahay wax mid loo baahan yahay sababta caafimaadkeeda waa loo ogaanaya waa fahanteen tan labaad mid kale aan idin sheegaa gabadha guriga lacag gabadha hadii la geeyo yaan laga xanaajinin xanaaga caafimaadkeeda uma fiicno mar walba niyad haloo dhisan la joogo mid kalena ogaad markay saxanayso kaliya ha laga tag inta kale ha loo joogo waa il dheeraysa gabadhi ها إلا حلا بحباب ما يعونيست حالة تولى أي برتايس كشيفتا dhegeysta jameeca aniga waxaan qabaa gabadhan masar in loo celiyo see u hadlaysaa waa jirintaa gabadh intee u wadaa war horta adiga maxaa tahay qaraabadeeda maa tahay adiga maxaa tahay tolkeeda maa tahay وبلو كادية وكادية kanaa naga xanaajiyo madax weyn leh سهرة سهرة حبيبتي كعلى هذا سهرة كعالس أنا الشقة أيان هذه وصل لابنيا سيدا ودقسي عبد ما يا وحبا يقول بالماني وانا مانيا ونكوحي سدون يا فرحة كانت مليانة واستكترتها الدنيا علي يا حبيبي راح الدنيا علي يا حبيبي ما نوشهاي ما رميسني إلا نوشهاي لهذا سو يمجدد وانا ولا جعلسه وانيجا indhahayga ayaanu moodaa iyo riyana ku jiro mana ma adigiiba ilaanka ku dhaariyey may nooshahay سورة ريح بدركتي أعوذ بالله يسوع بيمكوك أنا العبتد إيدو إنك أقول حنا سمينا ما يكون قروح بدن تهاي maxay qurux badnaawaysa inanka waa inan saaxiibkiisa uu ku qasban yahay gabadhii uu ka dhintay inuu u tago oo caawiyo garab istaago waa dad saaxiiba oo aada isugu dheer dad isla dhashana waa iska jecel yihiin maajid waa buu dhintay wiig ka horna way ahayd tacsidii anigu waxaan garan lahay naagta maajid ka dhintay wuxuu ka dul qabanayo ayaa iga yaabisay waa arrin cajiiba qof tacsiyo gasho maanay ahayn in garab la siiyo miyaana waalidkeed joogin iyo walaaladeed fariid baa wuxuu ii sheegay in walaalkeed joogo hooyadeedna ay joogto dhegayso eedo maxuu wiigaasoo dhan ka dul qabanaya ma waalidkeed maaha aabaheed maaha qaraabo maaha meel ba iska soo galaan mayna shaqa halkan ka sugin isaga waxaani waa waajib waanay fiican tahay inuu waajibka u guto wiilkayga gudashada waajibaadka aad buu ugu fiican yahay waana sidaa hatabatu u aaday ha waajibka ku fiican yahay inuu guto hadduu ku wanaagsan yahay waajibka inuu guto aniga waajibka iyo xaqan ku laameeye halo hooyo maya alxamdulilah aadaan u fiicnahay waa imaan doonaa insha allah hooyo haddii alla yidhaahdo tacsida maajid markii dhimata imaan doona maya hooyo waxba dhiba ma laha lawaal fawsi iyo friida ayla joogaan hooyo wax kastoo baad hadda ayaga ay caawinaa waa kana anigaa waqti walba garabkaaga taagan dalab isii anigaa ku adeegayo aada u mahadsan tahay
waa ku dhibaa umalaynaa iga raali maya noqo. ima dhimasaan ii dhib maalin walba anaa dhibkaan rababa anaa u baahan ilaahay khayr ha ها ku siiyo dhakhtarkii wuxuu yidhi galabta waad bixi karaysaaba sidaa ula soco hooyo waad maqlaysaa umalaynaya haddii alla yidhaa galabta soo bixi doonaa zuhra caafimaad allah ku siiyo khayr allah idin siiyo haddii aad rabto iska sii joog ilaa ka caafimaadaysid maya maya waa baxaya aniga inaan baxaan rabaa almuhiim maydkii ma la helana maya weli lama helin waa jeclaalaya inaan arko wuxuu ka dardaarmay in masar lagu aaso qalbigaaga khayr u sheeg zuhur anaa garabkaaga taagana baayo maxaa taxsiyaa lagu jiraano kowsi bilfadnaga waxaan kaa codsanaya walaalkay inaad ii raadiso meel fiican oo masar aan ka dego عندي سؤال اللهم وسع مدخله اللهم وسع مدخله اللهم اغفر له وارحمه اللهم تجاوز عن سيئاته اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله اللهم الهم اهل الصبر والسلوان اللهم الهم اهل الصبر والسلوان اللهم الهم اهل الصبر والسلوان فاتحه tan ooyeysaana maxay ahayd hooyo ee cabaadaysaa maxay siin talow waxay rabtaa oo isii bal naga kaxee arrimahaagan iminka waxay noqdeen kadarey wax loo dul qaadan karaya ma aha ma inaad gabadha dul taagnaatidunba waa runteeda heedheef aridow maxaa ku hagdhigay islaanta intaasoo dhan ugu maqan tahay horta haba tan kaa yaabay gurigaa la yimaadaayo reerkaa lagu noqdaa hoy sawa idinka yaakh wax naxariis ma liidin ma gabadha marxaladda ku sugan tahay ma ogtihiin haa marxaladda ku sugan tahay oo maxay tahay marxaladda aad madaxun u saraxaysa dabad saaxiibkay lilaahi meel cidla haddaan uga tago xaaskii uga tagay dadka maxay dhahayaan dadku maxay ka odhanayaan naagtaad u mehersan tahay aad banaanka ka tegaysid ma ka warwaraysid taa xitaa telefoonii ma soo dirtid war isku xishood waa kuu soo dirma waa kuu soo garaacay xataa teleefon gabadha garabay daday u baahan tahay dhakhtarku wuxuu yidhaha laga walwalo dadka u baahan dad ka mid tahay adug miya yaa akhi yaa iga daminta tan waa ay cabsiyaan tacsida xataa ma imaanin ka waran markaasaa siyaadlaysaa markan taxsiid man anigu yaan ahay yaan u aqaanaase murhaan tacsida waxaad ku imaanaysaa aniga wejigayga caqli suyaal yaa oo marka waxaad doonaysaa inaad annagoo dhan iyo reerkayga oo dhan keentay adigu kuma filin miya saad doontid waa u qaadan kartaa waxaan kuu sheegaa zuhra meel cidlaa ma uga tegay oo eedda ma aragta wuxuu samaynayo man isku naga daaya arooskiina waa isbuuci ka harsantiin markaasaa qaylo ka kacdeen ma i tiri asbuuciina ka harsan ah yaa idin dhahay waxaas idinka soo tacsi kuma jirno maxaa idinku dhacay bismillaahi miyaanadan aabahay ballamin ood arrin isku ogeyn aabbaha waa ballan waa runta laakiin geeriyaa timid aabbaha ballantiis kadib waxbaa isbedelasay saaxiibkay qaaligaa dhintay oo ilaa imisaan sugaa markaa oo tacsidu kaa dhammaanaysa aniga taas ma qiyaasi karo dareenkayga ayay ku xiran tahay waxaana kuu sheegaa zuhra ma cidlaynaya garabkeedaan taagnaana haddaba afkan afaan aabbahay ula tegi karaya maahee adigu intaad u tagtid u sheeg oo u sharax waxaad damacsan tahay anahedhay waxaan ku iri istaji gabarteydii qadaa idin karinaya hadhowbaad wada hadlaysaan anigu qadana ma rabo waa bar iska baxaya xageed u baxaysaa kaale bal friiso intee u socota hooy ha celini qoftan waa baxa cudur laa mar walba waa baxa ay ku haysaa ha soo nasato maskaxda soo dejiso ha soo noqoto mar hadday saa tahayna mari waayahay anu waaba sii socdaayo inakaan intee inoo mariha inakaan baan ku iri may kaxaynaysin mise imika waa layga xiisa dhaco layma rabo way kaa soo socotay taasina ها حبيبتي ما waxaan iska daysid week baad iminka ku socotay sidana si ma maya may loobi karaayo maajid naftaada khayr u sheego istaj xabiibti ilintaada maajid ma soo celinayso annaga dhan uu naga wada dhintay ها horta magti maxaa laga sameeyay aan weli baaritaankii socda baaritaanka waxaa sheegaysan maxamed maajid waa idhaaf hantin waxba iima tarayso laakiin waa xaqa adiga wiilkaada aad leedin intee uga tegaysa
أو بابي